xildhibaan baar siciid oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland isla markaana deegaanaha ka soo jeeda lagana soo doortay deegaanada Abadhan ayaa maray khadka telefoonka aan kula hadalnay iyadoo ku sugan dalka Turkiga waxa ay ka hadashay hadalka saaka ka soo yeeray taliyaha guud ee ciidamada qaranka Somaliland Sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani kaasi oo ka hadlay ciidamadii dhawaan ka goostay Somaliland ee ku biiray Puntland waxaana xildhibaan baar siciid hadalka taliyaha ku tilmaantay mid ayaan darro ah waa siday hadalka u dhigtay horta waa idin soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol waad mahadsantihiin hadalka taliyaha aad iyo aad baan uga xumahay xildhibaan ahaan boqolkiiba boqol baan ka xumahay ninku maalintuu ka tago haddii yacni uu dafinayo ama kuwa joogaba uu didinayo mas-uuliyadiisii ilama aha inay tahay waxay aniga mas-uuliyad darray igu muuqataa hadalka taliyaha ciidanku aad iyo aadna waan uga xumahay taliyaha ciidanka hadalkiisa oo waxaan igu muuqataa dhaawac Somaliland maxay ahayd uu gaarsiiyey ciidankaas intuu dalka joogay gobolada degmooyinkaas bariga Sanaag waxa ka suurtagalay laba diwaangelinood oo aan suurtagaleen haddaan ciidanku joogin waxa ka suurtagalay saddex doorasho madaxtooyo waxa ka suurtagalay saddex doorasho oo golo degaan waxa ka suurtagalay weerarro badan oo lagu soo qaaday oo ay difaac ka galeen oo dhaawac iyo geeriba ku yeesheen diga markaasi ka xildhibaan ahaan iyo ka mas'uul ahaan maadaama deegaanadaasi aad ka soo jeedaan mowqifkiinu markaasi imka muxuu yahay mowqifka iyagu anagu wixii uu ahaaba ayuu yahay oo Somaliland baanu nahay oo Somalilander baanu nahay oo waad garanaysaa xildhibaan Somaliland baan nahay laakiin mas'uuliyad la'aanta iyo ciidanku waxa uu ku tagay iyo eedaha meesha yaala intaba nuuxtaani baa ka mas'uula wixii dhacayna isaga ka mas'uula isaga gudan waaye waajibaadkiisii xildhibaan waxay dadku ay sheegayaan in ka mas'uuliyad ahaan iyo xildhibaan iyo mas'uuliyad ka soo jeeda deegaanadaasi badan aydan ay taali kari waayeen ka mas'uuliyad inaad gacanta ku dhigtaan oo Somaliland dadka bartaasi baran jooga aad ka dhigtaan oo Somaliland aad ku soo dabaashaan dadka bartaasi jooga taas laftiina la idigu eedeynaya maxaad kale Somaliland dadku de iska ahaan maayaan Somaliland horta de wax la galo iyo wax laga baxo ma aha dalka la yiraahdaa Somaliland haddii khayraadkeeda loo sinaan waayo waxqabadkeeda loo sinaan waayo shaqadeeda loo sinaan waayo scholarshipkeeda loo sinaan waayo maxay ahaytoy askartu ay xaquuq siman yeelan waayaan askariga maxay ahaytoy gabilay u dhashay nuuxtaani maxay ahaytoy la dhashay iyo ka aniga ila dhashay dalka Somaliland way wada dhasheen isku xaquuq weeye waa inay xaquuq siman yeeshaan xildhibaan baar siciid aad baad mahadsantahay waxaa jiray dhawaan in wafdi ballaaran oo madax dhaqameeda oo kasoo kicitmay deegaanka badan ay Somaliland dhawaan ku sugnaayeen ay madaxda kala duwan ay sarkeen madaxweynaha laftiisa ay sarkeen mas'uuliyiinta xisbiyada ay sarkeen waxaa laga wada hadlay oo waqtigaasi jiray in iyaguna ay ka shaqeeyaan sidii badan ay iyo deegaanadaasi Somaliland ay u noqon lahaayeen Somaliland ay u gaarsiin lahayd dhinaca mashaariicda waxqabadyada iyo hawlaha kale ilaa haddana dhinacoodii waxa la leeyahay wax jawaab laga ma hayo iyaga hawshaasi maxaad ka leedahay waxa weeye madax dhaqameedku qori qaadan maayaan oo ciidan difaacayaan dadka shacabka bay la hadlayaan haddii ciidanka la xumeeyo oo shacabka waxba loo qaban madax dhaqameedka aad sheegaysid naftooda ayaa qaar wali hargeysa fadhiya oo wax allaaliya wax loo qabtay iyo wixii loo ballan qaaday aanay ahayn wixii loo ballan qaaday baan lahayn marka hadday tahay wax qalano mindiya qarsanno inta wax la sheego daraan wadankii waxba gaaray taas waxay la tahay cidda ee dale waa garanaysaa gabagabadii maxaad soo jeedin lahayd ka xildhibaan ahaan waxaan soo jeedin lahaa taliyaha ciidanka qaranku hays asilo maxay ahaytoy madaxweynuhu taliyo kale ha magacaabo maxay ahaytoy hadalkaas taliyahana xaal ha ka bixiyo madaxweynuhu maxay ahaytoy Somaliland haddii rajo laga qabo weeye haddii laakiin wax kale ay jiraan aanan anagu ogeyni taasi way soo bixi doontaa waxa la yidhi macalcune soo bixi doonee aad iyo aad baad xildhibaan u mahadsan tahay xildhibaan baar siciid oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayay taasay oo TV-ga Universal khadka telefoonka ugu warramaysay iyadoo joogta dalka Turkiga aad baad xildhibaan u mahadsan tahay